هذا اللي جوي سومالان مدين سومالان dad Soomaaliya ku nool anaga albaab kasta u garaacnay in macuunaadka loo kordhiyo iyo kaalmada la siiyo Soomaali meel ay joogaan anigu horta wasaaradda arrimaha dibadda waxna waraaq ma qorin laakiin xataa wasaaradda qorsheyntu waxay qortay ujeedadeedu ma ahayn in Somaliland loo diido horumar Somaliland waa dad Soomaaliyeed istaahila horumar dowladda Soomaaliyeedna way ogolaatay annagu waxaan la soo weydiiyay dalalka مثلا Kenya maraan dheereen waxaan soo weydiisay inay qunsuliyado ka furtaan Somaliland iyo Kismaayo iyo dalka oo dhan ay rabaan qunsuliyado ka waa u fasaxnay dalalka aan la hadalno dhan waxaan idhaahnaa qunsuliyada Soomaaliya hadda ka furtaan way fiicnaan lahayd laakiin midnimada Soomaaliya iyo qarannimadeeda in la ilaaliyo dadka Soomaaliyeed oo dhan baa isku raacsan marka arrimahaas mararka qaarkood si kala loo macleeyaa senator laakiin ma jirto wax macuuna aanu niri Somaliland laga gooy annaga u doodno u raadina